dadkii gacanta kula jirayba xadgudubyadaas gacanta kula jiray oo aad arkaysa inay hub soo gelinayeen xuduudaha Soomaaliya oo aad arkaysay maaragtay ninkoodii diblomaasiga hadda maalmo ka hor la eriyay wuxuu gacanta kula jiray faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliya arrimaha gudaha Soomaaliya kula jiray siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya ayuu gacanta kula jiray wuxuu ka baxay xayndaabkii diblomaasiyadeed maaragtay la isku ogaa ayuu maaragtay ka durkay dawladda Soomaaliyana waana la ogyahay in taariikhdiisa la yaqaan ahaa waxyaalihii uu ka geystay dalkan 2018 iyo 19 iyo wuxuu ka geysanay nin la yaqaan ahaa askari uu ahaa laakiin safaaradan buu hadda diblomaasi markaan dambe ka ahaa marka deegaanada oo sida gaarka ah uga howlgali jiray waa dhammaan gobolada dalka uma kala socnayn ninkaasi falal dawlad goboleedyo la xiriir jiray dawlad goboleedyo iyo xamar iyo meel kasto ayuu howlo dawladda Soomaaliya indhaha ku haysay intii muddo 6 bilood u dambeysay indhaha lagu hayay markii reportkii uu soo dhameystirmana oo hay'adihii ku shaqada lahaa ay soo dhameystireenna eedeymihiina waa gacanta laga saaray safaaradooda qonsulka u joogay ayaa farta laga saaray kadibna dawladda Soomaaliya go'aan ayay ka gaartay mar haddii uusan ixtiraameyn dalkii uu joogay qawaaniintiisii hadduusan ixtiraameyn qawaaniinta Vienna Convention la yiraahdo oo 61 soo baxday oo dadka diblomaasiyiinta ay ku joogaan dalalka ay joogaan oo la ixtiraamo qofka diblomaasiga ay tahay xuduud uu leeyahay waxaas oo dhan muujinaysa mar hadduu wixii oo dhan ka gudbay oo falal uu gacanta kula jiray dawladda Soomaaliya waxay go'aansatay inay waxaas awal caadi bay iska ahaan jireen hadda dalka ma ka baxanin waa baxay caadi bay iska ahaan jireen waxaas oo waayii hore lagama diiri jirin iyadoo maaragtay waxaas wax ka daran bal sameeynayo ayaa laga indhasaama jiray laakiin hadda dawladdu runtii waxay go'aansatay inaan loo dulqaadan waxyaalaha noocaas oo kale ah sida aad sheegtay wasiir ninkaas wuxuu ahaa askari asagana ka muuqata sawirkii ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya baahisay ma jiro miya xeer caalami ah oo diblomaasiyiinta maaragta ama dawladda Soomaaliya ogolaansho guud looga helayo xeer waa jira xeer guud baa jira waa Vienna Convention baa la yiraahdaa diblomaasiyiinta caalamka oo dhan kaas la isku waafaqay 61 soo ayaa reviewgiisa u dambeysay la sameeyay kaasa la ixtiraama kaasa sheegaya maxaad leedahay maxaad immunity leedahay xasaanada leedahay waase dalka ay joogto sidee uga shaqeynaysaa maxaad ixtiraamaysaa maxaad dhowraysaa maxaa ku banaan kaas ayaa sheegaya kaas marka nin wasiirkiisii ama taliyihiisii ciidanka ama ra'iisul wasaarihiisii uu xadgudub ku sameynaya dal kale oo madax bannaan isagana wuxuu u haystaa waxaas inay sharci tahay Vienna iyo shuruuc caalamka u yaalo diblomaasiyadda u ixtiraamtay waxaas oo dhan dawladdiisii aan ixtiraameynba asagu marka wuxuu u haystaaba wax iska caadi inay tahay waa laga yaabaa inuu haysto haddaad ixtiraami weydid dalkaadi inaad ku laabanaysid oo kan aysan aada si joogis aysan lahayn taasi marka darsi ayay u tahay cid kasta oo diblomaasi maaha ninkaas kaliya cid kasta oo diblomaasi oo ixtiraami weyda xuduudeeda ku ekaan weyda ayay darsi u tahay cad oo dawladda Soomaaliya inaanay u dulqaadan doonin xilligii dulqaadkaas iyo halaga indhasaabtana uu soo gabagaboobay ay tahay ninkii tallaabo xadguduban ugu qaada inaan tallaabo sharciya annaguna aan ka qaadayno